السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنال كان يداوي سنة مكير اوفيشال جنال غير ميدي اوفيشال نوالي يداوي كرتين داوي ما شاء الله تبارك الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما انتو عنو الفريق مع النور وينجوجو جنال كان نوصو بوغدي وحربنا العدي دكي إن نسود يبين معلنكو جوجو أتيسنو قدوسيو قدوميا ربنا وحلنا معلمو كسود دوا جنال مكير اوفيشال كسود دوا جنال معلمو. تلفون كسني. بسم الله الحمد لله وتناول الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الله مهد إسكال سبحانه وتبارك وتعالى عليه خير كان نسوى فجيئة مهد إسكال سبحانه وتبارك وتعالى. أولا وحن آدي إلهي ومهد علينا سبحانه وتبارك وتعالى خير كان ونسوى فجيئة يفرقان قروح بدن ونسوى فجيئة وحن آدي إلهي مهديس إلهي ومهديننا barnaamijkii soo socday taxanaha ah la soo waday iyo dadkii ka qayb qaatay sidoo kale dadkii soo awaawulay dadkii isku xirkan sameeyay in qeyrkan ay ka taliyaan oo wax aad u qeyr badan u yahay wax la raadinayo aad u haboon ay tahay sababtoo ah nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa aad iyo aad mar walba ugu boorin jiray ummadii aad iyo aad asagan ugu booriyay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la weydiiyay waxaa la yiri man al-yatim agoon waa kuma nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man maata abuhu wa huwa saghirun duna al-bulughi kan nabiy muhammad sallallahu alayhi wasallam agoon waxa ah cunug yar ee aabihiisii geeriyooday asigoo oon qaan gaarin sida nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhashay asagoo agoon ayuu dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku soo barbaaray agoonnimo ku soo barbaaray dadkiisa ayaa soo barbaariyay ummadda dhexeed ilaahay ku soo barbaariyay sidoo kale marka waxa loo baahan yahay ummadda islaamka loogu baahan yahay dadka inay ka faala qaadaan agoonta ay ka faala qaadaan nabiga wuxuu leeyahay ana wa kafilul yatiimi kahatayni fil janna tasuli aniga iyo agoon ninkii ka faala qaadiy aniga saasan jannada ku noqonaynaa waa darajada ambiyada waa darajo qaali aan la soo koobi karin oo ilaahay ugu talagalay ilaahay uu siiyay darajadaas mutaysanaysa haddii agoon ka faala qaadid qof walbo ilaahay waa ka subhanahu tabaaraka wa taala hanti u dhiibay haddii hal cunug agoon uu ka faala qaado oo qof walba uu qabsado hal cunug agoon ka faala qaadkiisii uu qabsado agoontu waxba waa kaas ma murgaayaan sida oo kale maalmaha ka mid ah qiso yar oo aad ii soo gaartay aad u akhriyay ayaa waxay ahayd nin ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu kuriyooday kolkii nabiga uu kuriyooday markaas wuxuu yiri bax baa la yiri u tag ninka hebel la yiraahdo u sheeg u bishaaray in ilaahay janno uu siiyo subhanahu tabaaraka wa taala ninkii waxba kama uusan dhiganin ninkaasi loo diray in asigana farqi dheer ayaa u dhaxaysa wada dheer laba gobol ay kala degnaayeen dhacda waxay ka dhacday wadanka Kuwait ay ka dhacday ninkii mar labaad uu nabiga calayhi salaatu wasalaam riyo ugu yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiisu wuxuu ku leeyahay man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytana la yatamathalu fi surati ninkii aniga guriyooda i arko faqad ra'ani haqqan si haqq ayuu i arkay fa inna ash-shaytana la yatamathalu fi surati shaytaan muuqaalkayga oo kale ma samaysan karo mana yeelan karo ilaahayna ma siinay subhanahu tabaaraka wa taala haddii qofka nabiga uu kuriyooda wuxuu arkay nabiga maxamed oo ilaahay waa ka waafajiyay ilaahay horta waxaan ka baryaynaa in ilaahay uu na waafajiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam aragtidiisii adduunyo ilaahay nagu waafajiyo aakhira ilaahayna ma hoojiyo subhanahu tabaaraka wa taala marka ninkii tookadii saddexaad saasuu nabiga ugu yimid buu nabiga wuxuu leeyahay qofka kula jooga waa nabiga maxamed eena bax ninka hebel u tag inuu bishaare ilaahay inuu janno uu siiyo subhanahu tabaaraka wa taala ugu bishaareeyay ninkii wuxuu yiri waagan dhararay subaxdii waa soo kalahay waan soo baxay gaari aan soo qaatay buu ninkii aan aaday kolkii ninkii aan aaday ayaa ninkii la kulmay waan weydiiyay bishaaradii ayaan u sheegay warniyo tira 3 jeer ayaa nabiga kuriyooday calayhi salaatu wasalaam markii ugu dambeysayna waan soo baxay adigaan ku imid niyo maxaa samaysaa oo camal ah oo maxaa darajadaas ku mutaysatay ii sheeg buu yiri ninkii wuxuu yiri warniyo walaalkaygiioo soo dhawow wax dheeri maanta aan sameeyo ma jirto balse laakiin wuxuu yiri aniga wuxuu yiri waan shaqeeyaa markaan shaqeeyo anigii saaxiibteyda waa naagtiisii saaxiib waxa la yiraahdaa oo quraanka ilaahay uu ku sheegay labada lamaanaha ah ayaa la yiraahdaa saaxiib quraanka dhexdiisa ilaahay uu ku sheegay yawma yafirru al-mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi saaxiib labada qof lamaanaha la yiraahdaa oo isqabta ayaa saaxiib la yiraahdaa kolka ninka wuxuu yiri marka
saaxiibtiisii asiga waxay ku heshiiyeen waxaa daris la ahaa cid agoon ah ayaa daris la ahayd marka oo aabbahoodii uu geeriyooday ilmo yarna uu ka tagay ciddii markaas wuxuu yidhi naagtiisu wuxuu isla heshiiyeen uu yidhi ilmahan waa agoon awoodii wax ku keensadaana ma haystaan war wuxuu yidhi walaale bal ka waran mushaarka aan qaato adinkii ilmahaas hadaa idinkala gooyo naagtiisii way ku raacday wayna ka ogolaatay ninkaa marka qolo oo hay-ad iyo waakaas meelahaas uu ka shaqaynayay matalan mushaarkiisii oo kale wuxuu ahaa $1,000 oo kale ayuu ku shaqaynayay bishii $1,000 markuu soo qaato bishii mushaarkiisii uu soo qaato gurigiisii kama soo dhacaynin wuxuu ka soo dhacayay ilmaha agoonta ah ayuu ka soo dhacayo dariska la ka soo horjeedo wuu u kala barayay 500na wuxuu siinay ilmahaas agoonta 500na wuxuu ku maareynay gurigiisu ku maareynay si aysan ilmahaas aysan u dareemin in aabbahoodii uu joogo aabbahoodii ay ka maarmi karaan inay ogaadaan aabbahoodii kale in loo maareeyna ay ogaadaan aysan waxba aysan tabin aabbahoodii aysan tabin wax kale aysan ka tabin si ilmahaasi ninkan uu dhalay iyo ayaga isku badar ay cuni karaan isku dhar ay xiran karaan kolka ninkaasi wuxuu sameeyay ilmihii uu soo mara bisha markay dhamaato 500 boqol uu siinayo oo mushaarkoodii 5tiisa kalena asiga qaadanayo oo ilmihiisu ku maareenayo markaas wuxuu yiri wax kale maanta dheeri aniga aan sameeyo wuxuu yiri ma jirto mana haayo intaas bas ayuu ku sifooway buu yiri ninkii marka wuxuu yiri wax kale dheeri ma haayo ninkaasi wuxuu waafaqay xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ahaa ana wa kaafilul yatiimi ka hatayni fil janna agoon inkii ka faala qaaday aniga saasan jannada ku noqonayna kolkaas ilaahay ninkaas soo waafajiyay ilaahay jannadiisa inuu waafajiyay nin walbo agoon ka faala qaado ilaahay waa awaal marinaya subhanahu tabaaraka wa ta'ala ilaahay quraanku wuxuu ku leeyahay fa ammal yatiima fala taqhar agoonka xaqirin yuusan murgoonin yuusan waxba haddaadan agoonka wax siin karin xataa madaxa u salaax agoonkaas madaxa hadda u salaaxid inta tin madaxiisa ku taalo oo ajarkeedu ilaahay ku siinaya madax salaaxid leh u salaaxday ugu naxariisatay maxaa u malayn kartaa marka ninkii agoon ka faala qaado hantidiisii ku bixiyo maxaa u malayn kartaa janno ka weyn oo ilaahay ugu bishaareeyay oo nabiga uu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka waxaan aad idinkugu boorinayaa dadkii wax baxsaday ilaahay bedelkeed inuu idinkugu awaal mariyo waxa baxsateen ilaahay uu idin bedelo subhanahu tabaaraka wa ta'ala nin walba wax baxsaday ilaahay bedelkeed uu siinaya subhanahu tabaaraka wa ta'ala sidoo kale maalin maalmaha kamid ayaa waxa aad loo wariyaa Ali bin Abi Talib ayaa wuxuu u shaqeeyay naag yahuud ah gacmihiisii ayaa waxa galgalay biyo 3 koombo wuxuu soo qaatay oo wax ah oo mushaar loogu dhigay oo galay ah markuu soo qaatay gurigii markuu yimid buu wuxuu yiri saaxiibtiisii Faadimo wax noo kari markay koombadii koowaad ay karisay waxa albaabka soo gargaraacay maskiin oo socda waxba haysanin markaas Ali wuxuu yiri Faadimo maxaa yaalo koombadii ayaa taal si buu yiri waa la siiya maskiinkii tii labaad markii la saaray bislaatay waxa albaabka soo gargaraacay agoon markaas wuxuu yiri Faadimo maxaa yaalo agoonkii albaabka joogay koombadii bislaatay taal Ali si buu yiri agoonkii la siiyay koombadii saddexaad markii la saaray oo bislaadan waxa albaabka soo gargaraacay asiir maxbuus oo intaas oo sano meel ku xirna waxba aan haysanin wuxuu yiri Faadimo maxaa yaalo koombadii saddexaad taalo si buu yiri maskiinka albaabka taagan maxaa u haray ayagi waxba uma harin waa kaas waa faaruq ilay aayad buu ku soo aayad ah wayud'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran wayud'imuna way ku quudinayaan at'ama raashinki على حبه أيجو جعل أي سيناين أيجو جعل أديجو جعل بحي مرك إلهي وكسيناين محيسيان مركا مسكينا بيسيان ويتيما أغانكي وأسيرا محبوسكي إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما إن كلمة نطعمكم وإذن قودين لوجه الله إذن قود إلهي درديسي لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إذن كما ربنا أول مرين إذن كما ربنا إن سيدو كاله إن نوم مهد عليسان مهد علين أول مرين إلها كربتان سبحانه وتبارك وتعالى إلهي مهد علين تيسي أول مرين تيسي مثل سوكو وكرين إلهي وحدن كو بدل إذن كو بشاريي جنو إنو إلهي إذن سي سبحانه وتبارك وتعالى مركا وحا آدد إذن كو بورينا يا مر والبا إذن حسوسنا يا أغانتا وحي ليهن مرتبة وين أي كليهن دينك إسلام كده حديثي حتى أغان عنكي نكي كأويسيا سي الظلم أو أويسيا إلهي وحوسو ويدينا يا ملك الجبريل ملك الجبريل بإلهي وحوليه جبريل من أبكى هذا الغلام الذي غيبت أباه في التراب جبريل وحوليه عنقاس أغانك
oo aabihiisii aniga aan oofsaday oo ciidda aan ka hoos mariyey ninka ka oysiiyey waa kuma muxuuna ugu oysiiyey ninkaas cunugaas agoonta ah agoonta in laga oysiiyey ma ahan waxay mudan yihiin in madaxa loo salaaxo mar walba la kolkooliyo la daryeelo wax la siiyo wax lagu bixiyo marka waxaa aad ugu soo qatimayaa in agoonta aad daryeeshaan wax badan aad ku bixisaan واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله معلنك هذا وكيرودي ما شاء الله تبارك لعي أيام بعيننا إن شاء الله عمر محمد عبدي سودي بتلعبتان وجدين العقواي قدومية يا معلنك قدوم سينايو لعبتي تورانك وإلما أومن كواي معلمو إذا غو لعبتان قدوم سي واكاس معلنك قدوم سينايو لعبتي إلما حلو قولها واي lacagtaas kale ay safka labaad soo boodaya Faaduma Ali Xasan idoo kalena waa kina lacagtaas ay soo dhiibtay wixii joogta dalka Norway waa kaas maclumu waa guddoonsiinaysa gudoomiye waxa loo dhiibaa gudoomiye YouTube ka loo dhiibaa ninka oo branch wax qoro Makiyar official daawadayaal lacagtan kale sunu waxa waaye Maxamed Ahmed wuxuu joogaa sunu dalka Jarmalka uu joogaa jeclahay marka waa kaas waa intii li soo kiishtawaani waa kaas maclinka ayaa u dhiibaya oo guddoonsiga lacagtii ilma oo awoonka wax lagu qowlaa insha Allah waasha daawadayaal marka dadkii kale wax ku soo darsan karo waa kaas oo ku soo darsan kara daawadayaal inaan socodina la Makiyar official channel lambarkan shaashada ayuu ku horiyay معلم وهي ما قدومي ما حكى لك معلمك وأردت عابا ضدك وجوابي إن شاء الله إن شاء الله سيفي عن برنامج وانودينا إن شاء الله ونقول وحاربنا أجري حسناتنا ناسنو إن شاء الله بر لما أنا الوجرة وعوا أجر إن لسه خاصة ونكسن وبنت أملا مركز قدومي أذن واكس وعي وذا إن شاء الله وكما أنا من يسوق جاري وكوسو قدي وحي كلنا أذوق سوقنا واكس إن شاء الله إن شاء الله إسلا سعودنا يدين وين السوها سا معنا وحرمنا وحن دقنا وبحنا ما إن شاء الله وحن نام بحنا رمنا عيونا فوقنا مركز دتك أو داوداش أو دبكنا وحن لنا عيون يسوف الذيان نكي واحد بعد سنة جزاكم الله خيرا إن شاء الله إن شاء الله معلنك واكم هاتسياه وعون سجدي ومقليسين حديث كاش فربنا أو صوخاتي إن شاء الله إلمي أوانتو أنصير ابنا هذا إن واكنا دتك أو نكان صاحبكي كسوها جاجين قدوميها أصلا شيخي كسوها جاجين وحي كلتنا وأركينا أسدو إلهي ديدين تصونكي تضبع الشيء من لح إيش وحصاصا كلمن أدو إلهي كرا النقد إن شاء الله وحي نسوق قالوا ما كحزدينا واسيننا نكي مسلم أنحرستو إلهي أنحرسنا نكي يخب بني آدم مانتو أصحان أسماء إلهي أكتس أوالا ويالو مركا إن شاء الله هدو إلهي ديدين ساسا اسكولو سعنينا هدو إلهي كرا النقد انتا صانو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الكميدي نيدات قيل ميديو ما شاء الله